ciidanka BSF waxay u taagan yihiin difaaca ka hortagga wax kasta oo amniga khatar ku ah. Ma ahan ciidan amniga oo kaliya ku fogan balse waa cudud ka qayb qaadata garab istaagga shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u nugul. BSF iyagoo ficil iska wax u qabsay isxilqaamid bulshada wax ugu qabta had iyo jeer. ciidanka BSF waxay maanta booqdeen mid ka mid ah xarumaha dhimirka ee magaalada Gaalkacyo. saraakiisha ciidanka ayaa maamulka xarunta dhimirka ku wareejiyay agabyo kala duwan oo ay aad ugu baahnaayeen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naashatan Ilaahay waa soo keenay mahad Ilaahay waa iskale dadkan dumarka oo dadkii nugulka ah oo gobolka ah oo xarunsan Ilaahay caafimaad sare ah siiyo waxaan u keenay waxba maaha Ilaahay waa caafimaadka iskale daawo iyo raashin iyo adigu baan u keenay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaanu joognaa xarunta dhimirka haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Gaalkacyo. waxaan halkaan noogu yimid ciidamada BSF oo u keentay deeq raashin iyo alaab isku jira. aad bay noo mahadsan yihiin dumarkan hadda geesayga taagan iyo qayb xareysanba oo waayeelahan soo kicin waxay ka mid yihiin dumarka xanuunsan ee xarunta Gaalkacyo ee dhimirka. Bismillahir Rahmanir Rahim. maanta ay taariikhdu tahay 2025 bishii shanaad 22keedii waxaan soo booqanay xaruntan Gaalkacyo ku taala oo dhimirka oo lagu hayo dadka dumarka xanuunsan oo Gaalkacyo ku taal alaab yar baan u keenay oo aanu ku soo caawinay raashin yar iyo dharkii iidka iyo daawadii iyo waxyaabahaas ah. taasna waa mid ciidanka BSF uu u lahaa caado iyo dhaqan soo jireen ah inuu caawiyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland iyo cidii baahan iyo cidii tabar yar iyo cid walba in loo gurmado oo wixii loo kari karo loo taro. taasuna waxa weeye mid soconaysa aan joogsanaynin ilaa iyo inta adduunku uu ka jiro. dadkeena waa caawin doonaa waana caawinaynaa waana garab taagannahay ugumana horeyntanu ugumana dambayn doonto. intaas waxaan uga baxayaa arrinta xaruntan tan maanta aan u soo booqano aan u nimid. tan labaad maalmaha kan sida la og yahay gobolka Mudug buuq baa ka jiray. buuqaas ka jira gudoomiyaha gobolka ayaanu dareemaynay inuu hadallo social media mas'uuliyad darro ah inuu ka samaynayo oo ka hadlayay uma jawaabayno kumana dayanayno isumana quurno waxa uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo. Gaalkacyana waa magaaladayadii waa dadkayagii waa degaankayagii arrimaha nabadda iyo amniga iyo dalkan difaaciisa iyo soo jireenkiisa iyo shaqadiisa waa mid aan weligeed ka soo shaqaynaynay maantana aanu ka shaqaynayno barina aanu ka shaqayn doono adduunku intuu jirana aanu ka shaqayn doono. cid kasta oo haddeer hadlaysana BSF oo jirto oo shaqaynaysa oo dadka iyo dalka u shaqaynaysa bay u timid ayadoo shaqaynaysa oo dalka dadka u shaqaynaysana way tagi doontaa. waxaan ugu baaqayaa dadka magaalada Gaalkacyo ku nool maamooyinka iyo dadka shacabka ah oo maalmahan walwalka iyo la geliyay buuqa inay kalsami iyo niyad sami iyo deganaansho ku joogaan magaalada wax dhib aysan jirin. BSF aysan dhib iyo dhibaato midna u quurin dadkeeda ay garab taagan tahay amniga ka shaqayn doonto ka shaqayn jirtay weligeedna ka shaqayn doonto. waxaan leeyahay niyad sami iyo kalsooni ku jooga iyo aan tashuush leedin gelin iyo aan leedoona BSF wadanka cadow ku ah Puntland anaga iska leh anaga u dhimanno u dhaawacno u baaba'nay anaga dib walba u soo marnay haddeerna waa u dhibtoon doonaa waa u shaqayn doonaa. nin kasta oo iska hadla oo waxaan munaasib ahayn ku hadlana waxaan leeyahay iska hadlowina iga ray amaadsantihiin. BSF waa wehelka shacabka waa ciidan markasta ka warqaba bulshadooda waa cudud u taagan badbaadada dadka iyo dalka iyo deganaanshaha bulshada Soomaaliyeed.